hore waxaan usoo sameynay footer waxaan usoo sameynay maxaa la dhahay contactigi waxkii powtkii hero sectionkii iyo navkii laakiin maanta waxaan baran doonaa qaabka loo sameeyo qaybtani hoose maxaa loo yaqaan footer sidee loo sameeyaa. Okay, waxaan tagaynaa markaasi waxaan soo fureynaa section cusub ayaan abuureynaa. Sectionkan waxaan u bixinayaa markaasi footer section. waxaan furayaa div cusub, waxaan siinayaa markaasi class ayaa siinayaa. Classka aan siin doono waxaa leeyahay background waxaad ka dhigtaa pg light ka dhig, margin top waxaa leeyahay 0, waxaa rabaa qaybta sare inuu ku dhago, padding y ama qaybta sare iyo qaybta hoose waa inuu u dhexeeya markaasi ilaa 5 wax gaaraya. sidoo kale positionkan waxaa leeyahay absolute ka dhig, centerka si okay waxaa qoraa mx kadibna waxaa layout kadib d dash block. intaan markaas intaan waxay sameynaysaa markaasi background blue ah oo qoraalka centerka dhow imaan doono. haddii aan fiirino waxba nooma soo bixin, waxba kuma qorno. Okay, si markaas waxa uu sii qorno waxaan furaynaa div cusub, waxaan siinaynaa markaasi class waxaa leenahay btn group, macnaha button groupsna ka sameynaa rabnaa. textigan waxaa leenahay centerka isugu keen, si dhexda u keen waxaa leenahay d dash kadibna block, padding y iyo leftin waxaa leeyahay markaasi 5, waxaan leeyahay ayaan dhihi 1. Okay, gudihiisna waxaan u sameyn doonaa imagekan waxaan siin doonaa markaasi styleka waxaa leeyahay widthgiisa ama cabirkiisa ilaa iyo ka dhig 30 oo pixel ka dhig. waxaan siinayaa markaasi classka aan siinaya waxaa leeyahay margin x ama dhinaca bidix iyo midig waxaa kasoo sikataa markaasi ilaa iyo 1. qaybtan waxaa dhigi doonaa, waxaan best ku dhigi doonaa linkigeena sawirka. hadda markaan save dhahno aan fiirino aragtaanba waxba nooma soo bixin oo sawir kuma jiro, laakiin sawiradan facebooka social media inaan soo qaadanaa rabnaa. si aan usoo qaadan waxaan tageynaa google-ka, waxaa ku qoranaa twitter ama wuxuu doonaba ha twitter circle. Okay, kamid waxaa leenahay copy kadib waxaa leenahay right click leenahay kadibna copy image address, waxaan best ku leenahay qaybtan gudihiisa. Okay, intaan sameynin aragtaanba meeshan waxaa noo qoran 4 shay, kana waxaan ka sameynaa copy 4 ah, control c control v. okay, 4 waa dir. kadib waxaan sameynaa copy, kana copy kusoo sameynayaa iconkaasi, waxaa leeyahay enter keen control v, save aan dhahno kadib aan fiirino waxaa noo soo baxsa aragtaanba mid aad u weyn ayaa noo soo baxay. Okay, balse maxaa qaladnay oo aan ka tagnay? wixii aan qaladnay aan fiirino meesha aan ku qornay styleka. aragtaan styleka waxaan ka dhignay wax kale, waxaa ka rabnay inaan dhahno width 30 kadibna save aan fiirino aragtaan waxaa noo soo baxay mid yar. Okay, kuwan sidoo kale ayagana iska saxno. okay, widthga waa 30 ayaganaba. okay, midka xiga waxaan soo qaadanaynaa facebook. iconkiisa soo qaadanaysaa, waxaa leenahay copy right click kadibna copy image address, inta ayaan best ku leenahay. okay, waxaa kaloo soo qaadanaynaa inoo harsan okay, instagram copy image address, sidoo kale asigana waxaa ku dhahnaa best. okay, dhammaan intaasaa ku sameynaysa ama projectgeena hore ayaa kasoo qaadan karnaa oo asaga meel walba image taal waxaa ligi kartaa right click kadibna waxaa leedahay copy image address kadib source gudihiisa waxaa ku leedahay best. save aan dhahna aan fiirino aragtaanba waxaa noo soo baxay mid aad u qurux badan. kaliya waxaa inoo harsan inaan ku darno qoraalkani ee hoose inaan ku darno. si markaas qoraalkaas hoose ugu darno waxaan furi doonaa div kaleeta. div ayaa meeshaan ka fureynaa. classka aan siinayna waxaa leenahay markaasi textiga waxaad keentaa centerka keen, dhexda keen. sidoo kale texti waxaa ka dhigaysaa leenahay markaasi muted. waxaan rabnaa qoraal markaasi daciif ah sida kan camal u yaana ka dhigno. gudihiisna waxaa ku qori doonaa waxaa leeyahay copyright at 2020 all rights is reserved. save dheh kadib aan fiirino waxaa noo soo baxay qoraal markaas aad u qurux badan. waxyaabo yaraa ka tagnay. haddii aan fiirino kan aragtaanba naafkani wuxuu ku dhagan yahay qaybta sare. sidee u sameyn karnaa aragtaanba, laakiin kan wuu qarsamaa. si markaas usoo muujino waxaan tagaynaa naafkeenii. naafka classkiisa waxaa ku dari doona hal shay ah sticky top. save dhahna kadib aan fiirino aragtaan hadirtaama nagama harayo oo ku dhagan yahay qaybta sare. midda xigta waxaan rabaa
markaan click si meeshaan wuxuu geenayaa about sidee u sameynaya si markaas about aan u geeyo section walba waxaan u sameynaya id sectionkan ka bilaabaya waxa lagu magacaabaa id ay ku daraya id waxa leeyahay about ay la sectionkaas sectionkan waxa la id-giisa project sectionkan xiga asina waxa la dhahaa id contact okay saddex section ayaa waxa ku kala qoray id maadaama aan rabo saddexdaani marka kan click siiyo wuxuu aadaya id-gaas haddii id about uu hay about ayuu aadaya balse items kan kor ku qoran waxaan rabnaa inaan u sameyno ayagana linki waxaan leenahay index.html kadibna hash ayaa leedahay kadib wuxuu ku weydiinayaa xagee aadaysaa about ma u baahan tahay works ma u baahan tahay projects ama contact waxaa leeyahay midka koowaad maadaama about uu yahay about ka aad midka xiga ku sameey midka xiga waxaa leeyahay asina okay waxaan leeyahay asina project add kan ugu dambeeyna waxaa leeyahay contact add save day aan fiirino hadda about marka click siino waxaan geenayaa about projects marka geenayaa waxaan geenayaa projectska contact marka dhan waxaan geenayaa contactiga saaragtaan laakiin haddii aan rabo tawan scrollka marka click siiyo waxaan rabaa about iga sida u sameynaya si markaas u sameey maadaama sectionka id uu leeyahay waxaa tagayaa scrollka sawirkiisa waa kan linkigiisa waxaa leeyahay asigana index.html hash kadibna waxaa leeyahay about meeshii markaas adiga u baahan tahay inuu tago ayaa ku qoraysaa meesha kadib hadda click dansi wuxuu geenayaa about saaragtaanba okay projectiina portfolio ee Bootstrap 5 inta ay ku egyahay waa gabagabeynay course-kaasi insha Allah fadlan haddii markaas video-ga aad ka heshay like subscribe samee intaba asxaabtan la share gaarsiiya markaas ay ugu faa'iideystaan course-keeni Bootstrap meesha ayuu ku egyahay haddii aad jeceshahay markaas course cusub inaan furno ama bilaawno Soomaali ah fadlan dhanka comment ku qor waxaan rabaa laba inaan bilaabo laakiin midii aan bilaaw lahay waxaan rabaa go'aankeeda inaad adinka gaartaan oo ah Python inaan sameeyno ama JavaScript inaan sameeyno kaliya kuma eko JavaScript iyo Python kadib waxaan rabnaa course kamid ah markaan furno tusaale ahaan Python markaan bilaawno oo aan dhameeyno waxaan rabnaa in qayb kale Python kamid ah oo framework ka tirsan oo webka inaan sameeyno tusaale ahaan Django inaan sameeyno ama Flask inaan sameeyno mid kamid ah haddii JavaScript markaas adinka aad doorataana insha Allah waxaan sameyn doonaa la yiraahdo Node.js aan sameyn doonaa ama framework oo front end oo React.js ayaan sameyn doonaa aad u mahadsantiin wixii tala markaas dhanka comments ka ku qor